بسم الله warsama digital media waa idin salaamay dhammaantiin soo dhawaada maanta waxaan yaraha ka hadlaynaa inagoo sii wadna barnaamijyada ku saabsan doorashada ama qabashada doorashada golayaasha deegaanka iyo guud ahaanba doorasho hal qof iyo hal cod inay puntland ka dhacdo iyadoo arrintaa muddo dheer tan iyo taariikhdii puntland la asaasay lagu taamayay laakiin fursad loo waayay oo madaxdii siyaasadeed ee puntland arrinta ay ku fashileen dabadeedna ay dayatay nidaamkii qabaliga ahaa inuu waaro saasna ay u noqoto puntland fadhiid dadweynaha puntland mas-uul kama aha fadhiidnimada siyaasadeed ee puntland waxaa mas-uul ka ah labada xarumood ee isxukunka puntland ee ah dhaqanka iyo siyaasadda hagbadda la sheegaa ee la yidhaahdo maxamuud suleymaan dhexdooda way ku meeraysataa waa qeyb ka mid ah nidaamka qabaliga oo puntland ka kori weyday iyo fadhiidnimada puntland oo ay marna u gudbi weyday hanaanka dimuqraadiyeynta puntland ama xukun baahinta iyo dadku inay toos madaxdooda u doortaan qise yaroo dhacday ayaan idinka sheekeynayaa waagii anigu aan madaxtooyada joogay agaasimaha guud oo madaxtooyada ahaa ee xogayaha golaha wasiiradan aan ahaa ayaa nin dadka ka mid ah laakiin markaan xil dowladda u hayn ayaa yidhi ma agaasimihii madaxtooyada maxamuud suleymaan baa meesha maraya malaha wuxuu rabaa inuu iga xanaajiyo ama nooc maaragtay provocation iyo dandaas aniguna kama xumaana waxaan adeer oo durba aan jawaab la soo booday waxay ku xiran tahay hadba saa yeeshid haddaa igu qabsatana waa wada leenahay haddaad ii daysidna dee hadiyad ma helaysid hadiyad marna lagu siin maayo awoodda iyo madaxnimada puntland waxaan ka wadaa horta yaa wadaa hagbadatan dadku waxay u haystaan in dad gaara oo maxamuud suleymaan la yidhaha ay wadaan oo keligood dabcan waxbay ka wadaan laakiin waxaa wada dadka kale oo ama laga badan yahay amaan ahayn maxamuud suleymaanka laftigiisa dhowr goora aniga dhacday inaan dad weydiiyo warsee u aragta oo maxaa u doorataan hadiyo gooraale iyaga mar maaha laba maaha saddex maaha waxaa laygu yiri oo reerka keliyoo la baadi karaba waa iyaga ma cid kalaa la isku hadlayn karaa oo la baadi karaa oo kula dagaalamaya hagbaddu waxay ka mid tahay nidaamka fadhiidka ee puntland haddii la rabo in laga gudbo horta marka ugu horeysa waa in lagu dadaalaa qolada markaa isleh waa
hagbadiinii ama waa dowrkiinii hagbadda way horta waa in la dhaafiyaa maxaa la yihi soomaalidu weysha gawrac dibuga ha ku quusteen horta saa waa inay u dhacdaa waxa kan hagbadda ah wax kale maaha waa nidaamka fadhiidka ah ee puntland ay ka kori weyday nidaamkii qabaliga ahaa taa haddii la jabiyo iga rumaysta arrintaas waa dhammaanaysaa waa mid kale oo kutusaysa baahida loo qabo si degdega in puntland ay nidaamkan fadhiidka ka gudubto ay bilowdo nidaamkii dimuqraadiyeynta ama isxukunka tooska ah waxaana laga bilaabayaa middaa hadda la iclaamiyey oo ah golayaasha degaanka taa haddaynu ku guulaysano ta kalena waa usoo jeesanaynaa soo lama oran kunkii tillaababa yani mahmahdii shiinaha kunkii tillaababa hal tillaabay ka bilaabataa doorashada tooska ee golayaasha degaanka waa tillaabadii ugu horeysay ee nidaamka dimuqraadiyeynta waana hanaankii ugu horreeyey ee looga hortegayey hagbad dambe ee puntland ka dhacda marka saasay muhiim u tahay wax kalena maa hagbadda ogaada hagbaddu waxay ka mid tahay nidaamka fadhiidka ee puntland intaasaan rabay maanta inaan idinla wadaaga aad iyo aad baa umahadsantihi